وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه وأن يجعلنا من الراشدين. إخوتي في الله، خطيبك خير الله سيو وحنوسو دياري خطبة مهمة إن إلهي سبحانه وتعالى عبادة وإسكالي هاي كاليجيس سيدا عبادة أو كاليجيس أولي هاي حكم كان أو كاليجيس أولي إلهي سبحانه وتعالى وحكو أبو رئنا كاليجيس عابدو إن أساق كاليجيس لغا أمر قاتو laguma abuuro inaad wax kasta iska samayso. qofka ilaahay cibaadadiisa wax kale ugu daro waa gaal, waa kaafir billahi alcadiim. mithaal salaada allah iskalo loo sujuudaa mooho, haddii cid kale la siiya ka war gaalnimo mooho. arrinkaas marka dadka badanaa kuma baraarugsana. ilaahay subxaanahu wa tacaala keligiisayna diideen quraysh, keligiis wax kale waa ogolaayeen. ajacala alaalihata ilaahan waaxidan ina haada la shay-un cujaabay dhaheen. ilaahay keligiis marka la yidhi wax lala yaab waayay dhaheen. haddana kuwa culamo isku sheega waxaad maqlaysaa ku dhahayo ilaahay keligiis hala tuugay dhaheen. saasay leeyihiin. ilaahay keligiis daa la tuug yaa kaloo la tuugaa, danaha yaa la weydiistaa ilaahay subxaanahu wa tacaala. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. هدي إلهي دبكو تابسيو عد فايدي كرت ماله وكا فايدي كرتو أساق ماهي عد كلام الله يا ملائك أما أنبياء أما الرسول أما أولياء أما جني إنسي وح فايدي كرم جرا هدي يسوي مادان دب أديك كويستو أبار هدينا قبضته عد انت قادو أن إلهي أهين أو آرن وبدل كرت مجرتا. marka waxaa la rabaa in ilaahay lagu xirmo oo qalbigaada ilaahay aa ku xirto subxaanahu wa tacaala. waxaan noo socday marka muxaadarooyin maantaan rabaa inaan xoogaa isku dayo inaan bal soo gabagabeeyo. waxaan ka soo hadalnay bani aadamka saddex qayb inay u qaybsamaan: qolo la yidhaahdo muslimiin oo khaalisa, iyo qolo gaalo oo khaalisa, iyo qolo dhexdhexaada oo ku dhahay annaga dhexdhexaadaan nahay. أولئك هم المؤمنون حقا كوان إلهي ويري مؤمنين تدبتا مسلمين تحقا كواس ومؤمنين دبا. أولئك هم الكافرون حقا دحدحات كان محالي المذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء كوان لما جران دحدي جوغان. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار كواسان مركا قال هذا كحن gaalada waaba mid cadaysta gaalnimadiisa. waxaan rabaa marka hore waxaan u soo sheegnay inaan idin xasuusiyo haddii la isqabsado maxaa lagu kala baxaa kitaabka iyo sunnada. qiyaaska iyo ijmaacana maxaan dhahnay? qiyaaska iyo ijmaaca waa farac maho, kitaabka iyo sunnada inay hoos tagaana la rabaa. wixii lagu kala baxaya marka waa kitaabka iyo sunnada. maxaa u daliila fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi wاrasuul. maxaa ku xiga in kuntum tu'minuuna biاllaahi waاlyowmi اlaakhir. haddaad alle iyo aakhire rumaysan tihiin ku xukuma waxaad isku qabsatiin kitaabka iyo sunnada u xukuntama. waayahay qowlka maxaan soo dhahnay culammada qowlkeeda ma lagu dhegi karaa? maya. kitaab iyo sunno miya ayaga ma lagu dhegi karo. culammada qowlkeeda daliil uu u baahan yahay, ayaga lama daliishado. qowlka culammada lama xujaysto ee wuxuu u baahan yahay xujo. sheekh fulaan haasaan yidhi maxaan ku dhahaynaa? maxaa u daliila? maxaa lagaa rabaa? aayad iyo qur'aan iyo xadiidaa lagaa rabaa moo? miithaalaan soo qaadana cabdullaahi bnu cabbaas inuu yidhi inama alribaa fi nnasii'a. ribada waxaa waaye oo keliya riba nasii'a.
riba nasii'a bas laba jirtaba muxuu meesha ka saaray riba alfadl meeshuu ka saaray cabdullaahi ibnu mascuuda wuxuu yidhi ashayun wajadtahu fii kitaab illaahi oo ma kitaabka allaad ka heshow yidhi am samictahu min rasuuli illaahi mase rasuulka allah warkaas ka maqashay maa wajadtuhu fii kitaabi illaahi walaa samictu min rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam kitaabka allna kama helin nebigana kama maqlin yaa ka maqashay usaamaan ka maqlow yidhi usaama warkiisu xujo miyaa marka waxaan rabnaa marka inaan idin fahamsiiyo oo hadda aan ka bilowno warkayna qowlka saxaabiga xujo miyaa qowlka saxaabiga ah xujo miyaa oo ma dhihi kartaa saxaabigaasaa warkaas yidhi waana ku dhaqmaa ma dhihi kartaa qowlka saxaabiga xujanimadiisa labaa loo shardiyaa laa yuxtaju qowlu saxaabiyi ilaa bishartayni lama xujaysto qowlka saxaabiga ilaa laba shardi maahee shardiga koowaad maxaa waaye anlaa yukhaalifa annasa nas inuusan khilaafin qur'aan iyo sunno inuusan khilaafin horta haddii qowlka saxaabiga qur'aan iyo sunno khilaafin maxaan samaynaa waa ka tegaynaa moo labo anlaa yukhaalifa saxaabiyan awthaqu minhu waa inuusan khilaafin saxaabi ka tawfiiqsan oo maxaa laga wadaa asxaabta kulligood waa caadilin cudul waaye laakiin aqdamu minhu saxaabi ka weyn asagoo uga soo horrey islaamnimada ama afqahu minhu diinta ka fahmi og inuusan warkiisa khilaafin intaas horta ii hay dibaan ugu soo noqon doonaa waxaa jira marka in rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu sheegay iftaraqat alyahuudu 71 firqa yahuud waxay u qaybsanto wiri 71 firqadood nasaarana waxay u qaybsantay 72 wasataftariqu fi hadihi اlummah 73 firqa ummaddan waxay u qaybsami doontaa 73 firqo kulluhaa fi nnaar uu yidhi dhammaantoodna naartay galayaan ilaa waaxidatan hal maahee 72 firqo oo mid kasta dhahayso laa ilaaha ila allah muxamadan rasuulullah oo islaamka u nisbo sheegahayso maxay galayaan 72daas naarta yaa ka badbaadayo hal firqo rasuulka sheegay calayhi salaatu wasalaam waa la weydiiyey firqadaas badbaadaysa tee waaye inaa ogaataa la rabaa caalamka waa la fasahaaday markaasuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalama maa ana calayhi alyowma wa asxaabii waa firqada ku sugnaata aniga iyo asxaabtayda maanta waxaan ku sugannahay rasuulka muxuu ku sugnahay kitaabka iyo sunnada wixii la amro u raaci jiray bas ilaahay u amro sax firqadii marka bidcada la timaado rasuulka iyo jidkiisa ka leexatay iyo asxaabtii maxaa waaye aayad quraan waman yushaqiq allaha warasuula من بعد ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا قفك إلهي رسولك خلافه مسلمين تجدكو جدان أهين مرة مسلمين تاسل الشيء والرسولك أصحابته أفرسوا ويتبع غير سبيل المؤمنين mu'miniinta jidkoodii jid aan ahayn maro ilaan kitaabka iyo sunnada sida uu yahay yaa u dhaqangeliya oo sax u dhaqangeliyey suufiye miya al-itixaad miya takfiir miya tabliiq miya jadiidiye miya yayiin islaax miya waa nebiga asxaabta si toos u dhaqangeliya sax jidkaas marka uu ilaahay sheegaa mu'miniinta jidkooda jidaan ahayn qofka raaco نوله ما تولى ما يشوف جستان وجيدين شيطان كون راعن سينا هرت ونصله جهنم آخرها دي لتين جهنم أنقلينا انت صرت قبصو فرقة بدباد يسو وفرقة كتابك يصنده كأمر قاتو هداد خلافته كتابك يصنده أو كوحد هذا عبادة يكون دجسو أو الرسول كخلاف سن أو جدك النبي واقفتي مثال هدي كعبده إلهي هلا طوافي يريه قبري هداد ضوافت كور رسولك جدك يسميها وخلاف تمو
كعبة هلا طوافه إلهي يري سبحانه وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق ما ياتري قبرك أنا دوافا جدك رسولك ما يسا ما هيسيد وعدون سنتاي ما نارتك هو قلا يا تكمل اسكا إلالي وحاتري وكعبة واب سوف جيه بصوماليا كينب ما قدرنا حج كم بابا آذن بكعبة مكة إياها أصفر ديارها الراعينة صوماليا كوكينة قال لما كلمتها إن إلهي مال أو لغي عبادة أو يرماش عنها اللي يسوي ما أترى أنا بدلايو إله إن مكة الله شكتموه نينك ساس آمن سنة دا كود بدو كتقال كلاتاي نينك آمن سنة نينك يركعبة عن صور رأي أداترى إلهي ياسيي أوداس قال وايا كان سميي أو وركا سيريكي يكون راعينا قال وايا وحاجره إلهي وحوري إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ما إلهي هدو شيء رب إنه سميه كن أو ليه وأنا أهاها ما شيخ عبد القادر على سياتري وأمري أمر الله إن قلت كن يكن وكل بأمر الله فاحكم بقدرتي مناقب كي نوغو قرنت وأمري أمر الله أنا أمر كي جواب أمر كإلهي بقى هدان أمر ديبه وإلهي أمر ديبه بس وأمري أمر الله إن قلت كن هدان ده أهو يكون وأهاها وحن أهو ده ناقها ودان كده ناقها نقي وكل بأمر الله وحكست أمر كإلهينا فاحكم بقدرة إلهي وحو سمينا وحد هذا شيخ عبد القادر سميه محي نبي إلهي يا جارسي مرتبة داس هدان كده كور يا كن آل سيين شيخ عبد القادر نبي محمد لما سند دقالو انت قال عن بربرات قشتي مدخل ككور قشتي سيوصل أود منين أما أود وعمين هذا نوع دعوة نك ماذا حال وقفت الرسول صلى الله عليه وسلم نبر حب بدل وقفت برتك وفي برادك قوتي وماذا حكون دفاعي انت قضي أي مدح يسجى شيء مركزه الرسول كيري صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم سيقول كل بانيان نبي قود الدخري سي كل بانيان آيات قرآن سودكتي ليبان تود شقا ما كل هذا ليبان درد شقا ما كل هذا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ليس لك أذيك النبي محمد وكو مسؤول من لا أمر الثلاثة حق هذا شيء ما ملك أدودي شقا كله كان ليبان كان خسارة شقا ما كل هذا إله دور وكتب أقبلها كوا كدخري وكتب أقبلها صفقة هذا يسوق لها يعني أما هو عذابها دور كوحدي جبيسي النبي دقال كاس أحد وهاي كبد هاي خالد ابن وليد منك الجبيه وهاي قال هذا ولا صفناي هدنا وصوم مسلمي سيف من سيوف الله اللي بحيل ما ملك أسكله كن ما وياش مرك النبي نينك فلارت يسافت كوسو توراي كن دقح أهو موضوع كن حجرا ما دي كريا ما ملك أدونك يا أسكله علي إلهي أسكله سبحانه وتعالى تاس وامد رسولك صلى الله عليه وسلم حديثه وحكيري بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم والأعماش الصالحات كأودك دقا انت النوشيين بتصدى انت بعبادي سكرت عباديستا في النوينا إما دون رسولك يري وهبينك مقدي يدي سلمده مقدي وحصوص على موجده في النوين ساسو كلا إما دون قفك أصور مهاي مركاسو رسولك يري صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا قفك وحوى بريسها أسقو مؤمن أسقو قال قرح ذو عيسى ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا أسقو مسلم ومؤمنة أي قرح ذو عيسى أسقو قال نهي وهو بريسها معو كمتي يبيع دينه بعرض من الدنيا دينتي سو حوسي سها الدنيا ضلال كيد بس waxaad arkaysaa culimo badan oo dadaali jiray oo maanta dhahayaan kitaabka quraanka iyo sunnada waa aqiido iyo iimaan iyo akhlaaq waaye laakiin xukun shaqo ma ku lahan oo aad ka maqasheen ay ku jiraan facebookyada email kasta ay ku culimo Soomaaliyada waliba cid kale aan ahaynba
kitaabka iyo qur'aanka la isku xukumay maamul dastuur loo soo dejiyo dadka ma ahan maxay gateen marka ka horna waa fiicnaayeen kitaabkii iyo sunnadii u dagaalamayeen u qaylihayeen yabiicu diinahu bicaradin adduunyadaas uu fiirsaa mishaarkaas la siihayo fiirsaha fidnada marka waa socotaa iska ilaali cabdullaahi ibnu abi mulayka oo taabici ahay wuxuu yidhi adraktu 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ابن أبي مليكة تابعي وهاي وحان سوق قارو يري صد النن وأصحابة النبي كمذا لما أنت متكستو أو كمذا وعب سان نفتي منافق نمو ننكستو حوسلي عليك منافق أمات ورمال فهمها هنا عشان وقتي عنده كذا قرآن أخريا aniga heer saraan ahay oo isdhigata ka war oo tira adiga ma sha Allah maxaa kugu sadaqa la baxda shantaad waqti aad dukataa quraan waa akhrisataa maxaa ka hadlaysan ba saxaabtii nabigana nin kasto kamid ah maxuu isaga cabsaa inuu munaafiq yahay ghasiilul malaa'ika ninka malaa'ikta ay dhaqday dagaalka Uhud marka uu shahiiday yaa waaye dhawaaq hanzala mataqaana waa ninkay malaa'ikta dhaqdeed malaa'ikta ilaahay inta soo degtay dhaqday biyo korkiisa alla arko rasuulka ilaahay yiri malaa'ikta yaa dhaqayso ninkaasa inta dhulka fadhiisto ciid soo qaato madaxiisa ku shubay Abu Bakar arkay asoo dhahay waa hoogay waa halaagsamay Abu Bakar ay maxaa kugu dhacay Hanzalo markaasuu yiri naafaqa Hanzala munaafiq waayo yiri aniga munaafiqan ahay waa la yaab yor maxaa kugu dhacay nin fiican ahayde markaasuu yiri markii rasuulka uu wacdihayo yaa adduunyo dhan waa ka go'aynaa yiri khushuuc markii rasuulka aan xaqiisa ka soo tagnana ilmihii adduunyada iska dhex galaynaaba wixii wacdi waa hilmaamaynaaba war anigana waa ay haysataa yiri arrinkaas balnakeen asxaabta ilaahay maxay ka cabsaayaan munaafiqnimo zamankan marka waa zaman fitanti ay badatay Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wuxuu yiri munaafiqiinta maanta jooga ka daran kuwii nabiga waagiisi joogay waa nin saxaabiya waa nabiga la soo noolaay markii dad badan soo muslimeen taariikhdiisa asaga muddo waa noolaaye wuxuu yiri kuwa munaafiqiinta maanta jooga ka daran kuwa nabiga waagiisi joogay kuwa maanta jooga haduu arki lahay ka war kuwa maanta jooga haduu arki lahay waa ka daran yihiin mooho su'aalan idin weydiiyaa marka inaan soo gunaanadaan rabaa muxaadaradan soo socoto dhan su'aalan idin weydiiyaa haddii maanta waxaan meeqa ragcaan dukan laba ragcaan dukan sax haddii madaxweynaha uu dhow 3 ragcad hadii laga dhigo baarlamaankan uu ansixiyo oon ku raacna maxaa waaye sheegay maxaa waaye duhurkii oo khudbada la dukaay khudbadii 2 ragcoo nabiga noo sheegay madaxweynaha ku dhawaaqo saxiixay 3 ragcah laga dhigo yiri baarlamaankana waa ku raacay annakana waa fulinay maxana ayaga maciin ya sharciye dajiyeen miya ya maxay dhibe kufr duuni kufrin waaye ya ma ansaxe su'aal aan ku weydiiyo nima yiri aniga nabiyaan ahay أو يري قفكاس محاواي واللي وحيودا نبي أن أهي محمد أنا كدم بايو سمدا وحي يقصو الدقاء هدو يري قفكاس محاواي قال واي مديك رادت كور قفكاس محاواي قفك النبي نما شاكتو يا قال ما هو محوكو قالوا بي حق أو النبي اللي يو شاكتو ما هو محوكو قالوا بي حق نبي قال لي قار ليه أو شاكتي ما هو قفك إنه إلهي أنا هاي كور يا قفك اسمع هواي إلهي أنا قفك إنه معوية قال ما هيبو شرعي يا دجيو آيات قرآن سوقات إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه إن الحكم إلا لله حكمك إلهي ما هو وحك له مجرو أمر ألا تعبدوا إلا إياه وحو إلهي أمري
أسجى ما عد كلا إن إذن عابدين مصدبت الله إن الحكم إلا لله في سورة يوسف أمر ألا تعبدوا مع كل ذلك الدين القيم في دين تتوسن تاسواي حكمك يا إسكاله إلهي شيخ الدويرة مركا قرآنك عبادية أخلاقية وحواية إيو معركة توحيد إيو وايه لو ما باهنا إن معركة دستور أو مدة اللي قلنا معهن أما مدة ما يصيرنا كتابك إيو السنة كي بوساسة جوبي كتابك إيو السنة مدة ما يصير وحاكتنا ما يصيرن ترافيك هذا ترافيك مكجر قرآنك نظامك بابورتا قرآنك مكجرتا ما بدنا ما يصير مبو وركاز كور مركا إلهي سبحانه وتعالى حكمك أسجى ماله يا بس حكمك وحا إسكال بارلمان شرعيات دجيو إلهي سبحانه وتعالى مركا كوا مبتدعين وحيفا فيان أو كليا شرك القبور بس يكهدلان شرك التشريع ما كهدلان با صوتا مشاري كقاتان شرك القبور أي حق ساران قبرك إن الدواف وشركي قبرك إن شرد اللي حرت وشركي وقال نمو وايه إن حكم للدجيانه وحي كلهم كفر دون كفر ما لا صعدا كفر دون كفر يا يري مرك عبد الله بن عباس يري إن كستول اسكو خلافي وايه عبد الله بن عباس قول صحابي وايه قولك صحابي ما حن أشردنا الله يخالف النصا والله يخالف صحابيا آخر نص إنه سن خلاف كتابك سنة صحابي كلنا سن خلاف عبد الله بن مسعود قال له ويديي صحتي سورة المائدة صحتي سوسا صحتي وما لم يحكمك كنتي صحتي محاوالي أي رشوة لا لوش كمحاوايه الصحت واير وحاران وحال يري حكم ككورن حكم ككورن قفك إلهي غير كيس إلهي وحو سودجن كحكمه ذاك الكفر وقال لي مويري مركز وحو أغريه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك عبد الله بن عسقول كيس مبور هرت يا خلافي عبد الله بن مسعود وكفهم بدن عبد الله بن مسعود أفقه من عبد الله بن عباس فقه بدن يهي وكفهم سنيه دينته عبد الله بن عباس مركا كفر دون كفر وايور عبد الله بن مسعود محويري وكفر وايور دينته لوغا بخا يور كفر سوق هذا مركا حتى عبد الله بن مسعود تيس هدان كو اوغلانو او كفر دون كفر كو اوغلانو او كفر اصغر اد كودو كفر ير واي دينته ما لوغا بخايا اد لهدهي تاس حتى ان كو راعنه ما ان شرع لا دجيستو او كتابك لا اسك دغو أو عبد الله بن عباس كهد لاي عبد الله بن عباس ما أوجين بوحن إن كتب أنت لسكت تورو دستور قال الله قد رقمه ما أوجين بعبد الله بن عباس وحس ما كهد لا يبا كفر دون كفر مركو دايو هذا نقول كاجا كور راعنه من باب إرخاء العنان أن كون سمينه جانك أن كون دينه وحو كهد لاي إن كتابك على سنة اللي جت جاي أو شرع كلام الدستور قالات ما أهم والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم هذا القرآن مو نينك توغا يناك توغا دقا عنتك قويا يا دهي إلهي مايا هذا بارلمان كدهو حبس يا الله دقا أو دهو oo naga dhaafa waxaan cadaawad waaye baarlamaan oo isku raaco maxay tahay marka kitaabka Ilaahay la diido ma aha hal mid soo qaado tusaale aan ku siiyo nabiga sallallahu alayhi wa sallam waxa yiri walan tarda anka al-yahud wala an-nasara hatta tattabi'a millatahum yahuud iyo nasaaro raali kaana qamayaan illa aadiintooda ka raacdo ee qul waxaad dhahdaa inna hudallahi huwa al-huda هنونك إلهي هنون وحكلو هنون ما بجربه كبعد مع رسولك لا يري ولا إن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير هدار رعد أديك النبي محمد
hawadooda fiiri dastuurkan la dejiyey gaalaa dejisay kabacdina waa naloo turjumay intaas baa lala socdaa hawadooda waay marka gaala hawadeedu waay haddaad nabi maxamed oo hawadooda raacdo wax kuu gargaaraya arki maysid aayad kale soo qaado oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ou yidhi walain ittabacta ahwaa'ahum bacda aladii jaa'aka min alcilmi inaka idan min alظaalimiin haddii aad raacdo nebi maxamed oo hawadooda gaalada yahuud iyo nasaara hawadooda ha raacdo dhaalimiintaa ka mid tahay nabigaa la dhahayda dhaalimiinta aad ka mid tahay qiso yar aan ku siiyo marka waqtigu waa kulyahay qiso yar aan ku siiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aankiisa uu ku sheegay yahuudi madiino deganayd aan nin iyo naag ka mida iska zinaystay markaasay dhaheen maxamed aan bal wuxuu ka qabo aan fiirina bal ninkaan iyo naagtaan guuri hor u soo mareen zinna waa ku dhaceene bal aan haddaan wax khafiifa ka helaynin aan maxamed u tagno ilaahay wuxuu yidhi wakayfa yuxakimuunaka wacindahum الtawraah fiiha xukmu اllahi ثuma yatawallawnahu wamaa ulaa'ika bilmu'miniin saas mayno say kugu soo xuguntamayaan adiga towreedaaba agtooda ahe mu'miniin kadibna towreeday ka jeesteenay diideen xukunkeedu waa yaqaaniine mu'miniin ma aha liir kuwaas waa towreeday diideen fiiriya nebiga hadday u yimideen waxay dhaheen rasuulka allow bal ka war warkaan maxamedow nin naag zinadiisa ka war markaasuu yidhi towreed maxaa idinkugu qoran uu yidhi markaasay dhaheen waxaa noogu qoran in la fool xumeeyo oo dhuxul la marmariyo oo la madoobeeyo ninkii naagta dameer la saaro oo la kala jeediyo duudka ay isku hayaan magaalada la wareejiyo oo saas loo ceebeeyo keenuu yidhi waa beentood mogta waa keeneen akhriyow yidhi waa akhriyeen nin caalima oo ayaga ka midoo soo muslimay aa rasuulka ag fadhiyo markaasay marka aayatu rajmi dhagaxa lagu dilo aayadda sheegaysa markay soo mareen gacantou saaray waa ka booday intuu akhriyey nebiga asaga waxmaba qoro waxna ma akhriyo mogta ninkaanaa yidhi gacanta ka qaad dheh yidhi meesha gacanta ka qaad dheh gacanta ka qaada yidhi waa ka qaada akhriyo waxaan aa ka booday rajmiga waayaba dhagaxa lagu dilo nabiga marka muxuu sameeyey calayhi salaatu wasalaam xabsi mau dhigay ninkii yahuudiga naagta iyo yahuudiyadda ahayd inta soo qabto asxaabtii dhagax ku dilay dhagaxa lagu bilaabay ninka naagta uu difaaca waada u jeclaay marka asaga dhintay aayada lagu bilaabo marka dhagaxii isu dhigay sida loogu wada asaga dhacay iyada lagu bilaabo dhimatay wuxuu ku xukumay rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhagax lagu dilmo haddaan dhahna marka labada kala zinaysto oo raalli isaga ah labada jinsi dastuurka waxaa ku qoran labada jinsi oo si raalliya wax isaga dayaan waxay rabaan ha noqdaano laba nin laba naag nin naag ha isqabaan iyo isqabin ayagoo raalli wax iskaga daydaan waxba dhib ma lahan dembi ma lahan dembi hee ma lahan haddaad zinaysata marka dembi ma le kufri duuni kufrin miya ya waa gaalnimo cad macnaha yabiicu diinahu bicaradin min addunya iska ilaali diintaada ha gadanin oo ha ku gadanin lacag yar diin dhan ah inta la bedelaa xagga la dhigay markaasaa hee waxyaabo kale la dejiye maho gaalada hawadoodii aa lagu dhaqmay annagana diina ilaahay noo soo dejiyey oo rasuulka yidhi sala allahu calayhi wasalama la yidhi ku xukun wa an ixkum baynahum maxaa la yidhi wa an ixkum baynahum ku dar bima anzala allah wa an ixkum baynahum bima anzala allah dadka waxaa ku kala bixisaa wixii alla soo dejiyey haddaan iska dhigno hadda annaka golley waxaa sharcigay dejiyeen qofkii neef riya xado waa loo labalaabaa waa isku raaceen kulligood waa saxiixeen odayaasha neef riya qofka xado waa loo labalaabaa saxiix haddaa saddex hadda lixa lagaaga dhigaa saddex riya xaday lix neefkana waa lagaa magaa lix neef maxaa waaye
sharci dejin ma aho ya ee gaalnimo waaye waa gaalo salaad laga aqbali maayo haddayse toobad keenin waa gaalo warintaas ma la fahmaa waa kufaar sababtoo sharciga dejiyeen ma aho wasaariqu wasaariqatu faqtacuu aaway naag qurayshiyada oo laandheera wax hadday nabiga gacantaa laga gooyaa yiri war waxaa la yidhi naagtaa naag laandheer waaye see rasuulka uga fakinnaa naag tol khatar ka dhalata waaye see la yeelaa waxaa la yidhi usaama ou nebiga jecel yahaye asaga ha loo maro asaga ha ka sasabo wax kale ha lagu bedelo markaasuu nebiga usaamo u yimid usaama inta loo tagaa laga soo dhaadhiciye nebiga u yimid inuu kala hadlow rabay markaasuu yidhi atashfacu fii xaddin min xuduud illaah xad ilaahay xadkiisa ka mida baa adiga ka shafeeca qaade aad ka soo ergeyhaysaa allaan ku dhaartaye low anna faatimata binta muxammadin sarqat laqatactu yadaha faadimo oo ina muxamed oo gabartayda hadday xad lahayd wallaahi yaan ku dhaartay gacantaan ka goyn lahay adigana waxaa sheegaya fulaan fulaan kale ya war waxaad ma yahay ya kitaabkan waxaa loo soo dejiyey oo sunnad in lagu dhaqmo maho haddaan lagu dhaqmin waa la dhumaa waa la baadiyoobaa haddii alamru bilmacruuf wannahyi can almunkar laga tago oo la qaato juz ka mida alamru bilmacruuf qayb yar oo ka mida oo salaada walaal soo bax salaada bis oon wax kale ummadda loo sheegin hanuun miya waa baadi sababta maxay tahay afatu'minuuna bibacdi alkitaab watakfuruuna bibacd afatu'minuuna bibacdi alkitaab yahuudaa lagu yidhi ma kitaabka qayb ka midaa rumeeyeysiin qaybna ma ku gaaloobaysiin waa gaalnimo cad iska ilaali in kitaabka qaybna laga qaato qaybna la iska tuuro maxaa la rabaa diinta in la wado kulligeed maxaa la rabaa diinta in lagu wado camal falo alamru bilmacruuf wannahyi can munkar ma kala heraan waxaa kuu soo heray kooxa ayagana dhaheen keligayaa muslima inta kale gaalo waayo cilmi uma lahan kitaabo ma bartaan memory wax ka dhegaystaan oo shiiq qardho jooga soo duubay bas qofka wuxuu muslim u yaqaanaa inuu inta ka soo baxo xaafadahan ou ceelgeel la dego waa muslim bas intaas le waayo haddaad dhahdo aniga gaal maan ahay haa maxaan ku gaaloobay ii sheeg adiga waxaa waaye kawaanka hilibkiisa cuntaa intaasaa ku gaaloobay bas kow haye waayahay waa soo muslim ahe maxaan ku muslimaa su-aal jawaab u baahan maho waxaad ku muslime soo guur ceelgeel la soo dego muslimnimo intaas le waayo xilliga nebiga maxaa lagu muslimi jiray laa ilaaha ila allah qofka haddau dhaho muxuu ahay muslim ma aho ayaga muslimka waxay u yaqaanaan qofka ayaga ka tirsan bes qof aan ayaga ka tirsanayne saxiixu lbukhaari nebiga ciidan uu soo watay sala allahu calayhi wasalama gaalow soo kordega habeen madow waaga intuu ka baryow sugay wuxuu rabaa inuu weerar gaadmo e ku qaado magaalada waa la kor degaya dadka ma ogaa isku hurdaayaan markay soo kaceen nebiga wuxuu maqlay adin salaad subax adinow maqlay markaasuu yidhi naga keena muslimiin waaye ciidanku waa ku kor waday adin bas ou maqleed sababtoo adinka ceercaar miya ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxameda ma ku jirto kelimad tawxiid ma ku jirto rasuulka haddaba maqla ciidanka waa kor raray ayaga waxaas ma rabaanba tawxiid maba rabaanba muslim waa kii he ayaga magacooda sheegta bes kaasay muslim u yaqaanaan sax miya ya aniga nimaa isla hadalna ayaga ka mida masaajidkaanu ugu yimid waa fadhiisanay kutubkaan soo akriyo uri aan soo akriye waxaan yidhi horta adiga isu kay sheeg yaa tahay markaasuu may iska dhaafe ma ii sheega er may aniga waxaan ahay dadka takfiirka la dhaho oo laakiin annaka takfiir ma nihin dadka ma gaalaysiin haye horta markaan isfahamnaan kutubkaan qaadahan aan isfahamna aniga adiga meeshii aan fadhiisanay cabaaraan doodnay waxaa idhi qofaa masaajidka soo galaa idhi saan warka u wada wax kasta xadiid kasta aayad kasta u keen ma aqaano ku leeyahay waxaa idhi waxaad taqaanaan kuu sheegaya qofaa arintan ka soo galay sunnadiyaa ka muuqato waa weyse qaatay qiblada u jeestay adiga ma taqaanid anna ma aqaano salaadaa nagu jirto
muku xiraynaan iri mayow yiri maxaa ku diidaan iri laa ilaaha illa soo u fahamsan yaa ogow yiri qalbiga yaa og ilaahay subhanahu qalbiga yaa og horta ilaahay Umar bin Khattab muxuu yiri nahnu nahkumu bidh-dhawaahir wallahu yatawalla saraa'ir annaka waxaan xukumaynaa qofka dhaahirkiisa wuxuu noo muujiyo ilaahayna sirtiisa asagaa xukumay qofka wax u qarsoon ilaahay u taala laakiin qofkan islaam noo muujiyay sida uu noo muujiyay kula dhaqmaynaa yiri hadduu xumaan noo muujiyo qalbigiisa wixii rabaa ku jira xumaantaan kula dhaqmaynaa intaas ma la fahmaa waxyaabaha marka dadka lagu qaldaayo waxaa ka mid ah oo dadkaas ahlu bidcada ay ku shaqaystaan in meelo khayriyaad la sameeyo masaajid iyo madaaris iyo khayriyaad in la furo waxaasna xilliga nabiga ay jirtay calayhi salaatu wasalaam nimanka munaafiqiinta ahay nabiga la noolaay iyo gaala wada tashaday waxaa la yiri wixii akhbaar meelaan isku dhaafsanaa la rabaa oo aan laga shakin magaalada Madiina inaan imaano see la yeelaa waxay dhaheen masaajidaan dhisaynaa masaajidka qofka galay xal loo haystaa marka muslim lamo masaajidaan dhisaynaa masaajidka markaan dhisno meesha la imaada warka iyo meelahaas aan ku kala qaadaynaa xilliga sanadka 9aad hijriga nabiga isu diyaariyay nimanka Room oo inay soo duulaan oo magaalada Madiina soo aadaan rabaan oo ciidan u diyaarsaday 30,000 oo ciidan u diyaarsaday markaas oo asagoo labisano safetiisa wato ay u yimideen rasuulka ilaahayow masaajidaan dhisnay noogu duko waxay rabaan inay sharciyeeyaan oo rasuulka hadduu ku dukado waa bas moogta hoosna ay kala socdaan hawshooda ka wataan rasuulku wuxuu mashquulan ku jira dagaal ay haysteen hadaan soo noqdo dagaalkii markuu aad qaswatu tabuuka sanadka 9 hijriga markuu soo noqday rasuulka sallallahu alayhi wasallam aayad quraan soo degtay والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون وعلى يركوا مسجد نبكس ضرارا لو بخي مساجد لو دبا مسلمين كو سميستالين او كفرغا او سميستay iyo tafriiq muslimiinta inay kala geeyaan isku diraan u samaystay iyo inay gabaad uga dhigaan liman xaarab Allah wa rasuulahu min qabl dad ilaahi iyo rasuulkiisa hore u dagaalam yahuud iyo nasaare inay gabaad uga dhigaan rabaan iska ilaali waxayna ku dhaarahayaan rasuulka ilaahiyow wanaag basaan ula jeednaa annaka ilaahi wuxuu beenay sheegeen la taqum fiihi abadan dhexdiisa ha istaagina leeyir waliga ha istaagin dhexdiisa waa masjid لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق فيه أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين كاس مرضى ما يستاجنا اليورت رسولك معوسة بيمرك عيدا وأمر هل الدميوير نقول كالا دقايب أسكتنا هل الجبوير ولا الجبي قشن قمنا هل الجبوير إن أمرك يسوق كتسون تماهن فرق ضوابتين بعد ذي نبك وابتي كتابك يسند ولا وضع شيئها لكن دقن كقف كفيري معو كسر على هرت معو وعكوعكم ماكو معو كعبادة يستا حكم أو غيرك إلهي غير كيس هدو وقول لي هاي بدعة وقلي إلهي غير كيس حكم كيس هدو وقول لي معو قلي فرقوين كرنو مو قلي عبادة كفير يو عبدا سبحان الله هدنا سبحان الله يا سبحان الله هو يا سبحان الله ما هو سبحان الله هدانك لقول لا إله إلا الله متى إلا الله هدان لا إله إلا الله كور توحيد مياه لا إله إلا الله مياه إلا الله يا قفك وحال رأينا إلهي كعب صور كوحدا وعكوتر ميسو كلقاها قبر قلي كلقاها لقو حسابي دونا إلهي ذور يستاقي دونتا ور إلهي كعب صور توحيد كان لقول ليلا يسكدف لا إله إلا الله أنا كم حمام أمريكا في الوداد هذا مقعد شيء ما يدهايو لا إله إلا الله فضل هذا وشيء وكلمة أقول فضل بدل النبي شيء يكون هذا واسح مركان سوي هذا يساس وفضل ولا هذا ما مركان إسلا قادنو أي حماتي مركان إسلا قادنو مركان سكون فهم مركان لا إله إلا الله مركز ما يحماتكوي
هذيك التوحيد ما شيء هرت لا إله إلا الله ما أنت لا إله إلا الله ده هذا إلهي مكان أقبلها استغفر الله استغفر الله ده هذا كور استغفر الله استغفر الله استغفر الله إلهي مكان أقبلها محاول دي وصارت مع أفعال ما كان له أفجني ما كان له يسا وحكوا هذا سمعتها استغفر الله مسعنتها marka waxa la rabaa qofka kitaabka iyo sunnada ku deeqay ku ekow hada aakhiradan ka leedahay way hadii kooxdaada ay kula weyn tahay oo aadan khilaafi karinne oo rasuulka ay kala weyn tahay aday ku taala meesha galaysa aakhiro meesha galaysa aday ku taala waxaan rabaa markii inaan ku soo gabagabeeyo bara bin aazib radiyallahu anhu oo nabiga baray ducada marka la seexay la akhristo oo baray marka uu dhameeyay oo baraa ku soo celiyay marka uu maraayo la malja wala manja minka illa ilay amantu bikitabika alladhi rasuulku wuxuu bara amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyyika alladhi arsalta asaga markuu ka baxay wuxuu yiri amantu bikitabika alladhi anzalta وبالنبيك الذي أرسلته وأنا كلمة صح ما هو ما يوي رسولك ما هدين نبي الرسول ما هو وبكتابك كان رمي أنزلت أسود الجسي وبكتابك الذي أنزلته وبالنبي كان نوار رمي نبي قاعد نوار رمي أسأل محور المركة وبالرسولك الرسول كان نوار رمي إيه كلمة ما صح إنه رسولك محور مرده يصير مية وبالنبي كده فنتاس ما فاهمها التحيات كان أغريها التحيات كمركع أغسل النبي يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد إلهي ما أقبلها اللهم صل على سيدنا محمد إلهي كأقبل ماي صلاة هذا الواحد كجر ملها اللهم صل على سيدنا ورنتاس ما فاهمها وحي محال ربا وحن وحي واي صح رأي ما أهن قولت جسي ما أهن محوي هاي سمده كسود دقي وحي واي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي نبي صلى مرك الله أبو يديو سيكو صلينا الله يري صلي إبراهيم يوبري سيدنا كمجرو هذا هذه زيادة سكدرت إلهي مكا أقبلها زيادة إلهي كأقبل ماي مركا وحان ربا إن شاء الله تعالى وكسو قبقبي وحاضروينك إيوحي يوردن تضباطا إيسد أحداث فرقانا هل فرقا كتوسا هل كفرقانا وقوحدي في رسو وحان نبيك مجريي أصحابتي ما سميان ميا ما هو وكل حيسان هدي في عنتها يا سمي لها يا سمي لها سقال ساعة بيني ما نسوكعي ميكروفون كان قبصدي مركاسان حترك نفتي هذا وعاوي أصبحنا وأصبح الملك لله والأغريها أصبحنا وبرميها ملوا بريست سقال ساعة بيني يا وحبال الله دلدلي كبعدي أن أدمي دينت معاكو سمي أدينك النبي النوغتك محل قدري ما أنت نواقي لها وسوء استاقي وحال لأغون دلدلي وحبا وشاقي ننكاس أدينك مزيادينو يا وحال الربا مركة نبي ننكان ما خلافها أدنى خلاف ولي قد بدلك أسكر راعانا نبي إلا خلافه يواشقي عليه الصلاة والسلام حديث كعرباض بن صارية فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا قفك إذن كم يدون نولاضو وخلاف بدنا وأركي دونا دقيس حديثك وكسو قبقبيا قفك إذن كم يدون صحابه يوصين نولات خلاف بدنا وأركي دونا هدي الله خلاف سيلا يلا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد هذه ليس خلافة أنا جد كيجا كودجا أفرت خلفاء الراشدين جد كودا كودجا جوز دمبتك كقبصدا وإياكم ومحدثات الأمور وحيابها دين تلقوسو درايو إسكا إلالية إسكا جيرا محايا فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بدعة دم باذي واي باذي ودن انتي قاله أذيك محاكوف المركة أبو بكر عمر عثمان علي النبي جاء أوين والنبي أمدنا الرعسن أفرت خلفاء الرجال أبو بكر عمر عثمان يا علي ما جد كود الرع
nabiga hadduu wax xukumay muxuu ku xukumi jiray kitaabka iyo haddii uu ka baxdo jidkiisa ma haysaa ma khilaafino yaa ha cibaadadana kutubtay ku taallaa intaasaan kusoo gabagabayaha ilaahay tawfiiqda hana waafajiyo ilaahay quluubta ha noo tahiro nabiga sala allahu calayhi wasalam jidkiisa ilaahay ha nagu dilo atbaacda nebigoo saxa ilaahay ha naga dhigo bidcada iyo shirkiga iyo khuraafaadka ilaahay ha naga baabi'iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam dadka u shafeecaya allah ha nagu daro ilaahay shafeecadiisa naguma qadiyo nebiga shafeecadiisa ilaahay naguma qadiyo muslimiinta ilaahay ha guuleeyo gaalada ilaahay ha jabiyo kitaabka ilaahay meel kasta ha ka taliyo ilaahay kelmaddiisa kor ha naqato kelmadda kufaartana hoos ha naqato quluubtayna ilaahay ha ku shuba jacaylka nebiga iyo asxaabtiisa wabillahi towfiiq wasala allah wasalama calaa muxamedin wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin